tahay maxamed salebaan saad ka dhawaafisay waxaa howlgallo lagu baacsanayo haraadiga argagixisada arxanka daran al-shabaab ay ciidanka xoogga dalka Soomaaliyeed oo garab ka helaya ciidanka deegaanka ay ku baacsanayeen deegaano hoostaga gobolka Hiiraan waxa sida loo socotaan waxa maalin dawlad gaaray gobolka Hiiraan taliyaha ciidanka dhulka xoogga dalka Soomaaliyeed Janaal Maxamed Tahliil Biixi Sharif Warwaax iyo saraakiil uu hogaaminayo iyadoo halkaas hore uga socday howlgallo lagu baacsanayo haraadiga argagixisada arxanka daran al-shabaab ciidamadu kan iyagii soo gaaray taliyaha iyo weliba howlgalladii hore haddii aan dhegeystayaasha iyo dawladayaasha aan u xuso ciidamadu waxa ay kala wareegeen argagixisada arxanka daran al-shabaab deegaano dhowra oo hoostaga degmooyinka Matabaan Maxaad iyo weliba Beledweyne oo caasimadu ah gobolka Hiiraan oo argagixisada ku dhibaateynaya dadka shacabka deegaanadaas waxaa ka mid ah hees Abuurey Ismaaciil Dhayare oo iyagu hoostaga degmada Maxaad dhanka kale halka waliyaabo Beergadiid oo maanta Kare Jiracle Gaalfuul iyo Bacda oo iyaguna hoostaga degmooyinka Matabaan iyo Beledweyne ayaa ay argagixisada laga saaray oo ciidamadu ay howlgallo kaga xoreeyeen nabadgelyada argagixisada arxanka daran al-shabaab howlgallada inta ay socdeen ciidanku waxay ku burburiyeen fariisimaha argagixisada rabeen inay ku dhibaateeyaan dadka shacabka waxaana xusid mudan in ay la socdeen dadka Soomaaliyeed argagixisada arxanka daran al-shabaab kadib markii uu tarmay dhibaatada iyo hagardaamooyinka ay u geysanayaan shacabka oo ay ugu dambeysay iyadoo deegaano dhowra oo hoostaga degmooyinka Matabaan iyo Maxaas ay ka geysteen falal aad ugu xun bini'aadantinimada aad uga fog Soomaalinimada taasoo ay ahayd in ay gubeen ceelashii isla markaana ay biyaha ka cabisireen dadkaas iyo weliba bulshadaas u badan xoolo dhaqato iyo weliba inuu ka gubay ateerooyinkii ay ka isticmaali jireen dhanka isgaarsiinta argagixisadu waxa ay saareen waxay marayaan wadadii baaba ah iyagoo dadkii shacabka dib ugu joogtay kadib markii ay iska difaaci kari waayeen weliba ciidanka xoogga dalka Soomaaliyeed qaybihiisa kala duwan waayahay Shilaawow dhinaca kale maxaan ka ognahay howlgalka uu qaybta ka yahay gudoomiyaha gobolka Hiiraan Cali Jeete Cismaan ee isaguna ka socda qaybo ka mid ah Hiiraan waa isku howlgal way socdaan gudoomiyaha gobolka Hiiraan iyo dhanka maamulka iyaguna waa ay socdaan balse maadaama ay soo gaadhay saraakiisha ugu sarreysay ciidanka dhulka xoogga dalka Soomaaliyeed howlgalladu waa howlgallo dhinacyo badan ka socda isla markaana argagixisada xiidada lagu siibayo oo ay isbarbar socdaan dhammaan iyadoo ay ciidanka xoogga dalka Soomaaliyeed qaybihiisa kala duwan iyo ciidanka deegaanka iyo maamulkii horkacaya gudoomiyaha gobolka Hiiraan iyo weliba ciidanka xoogga dalka Soomaaliyeed oo iyaguna dhabar u ah howlgalka lagu baacsanayo argagixisada maadaama ay dhinacna ka taageerayaan dadka shacabka dhinacna iyagu caawinayaan oo ay baacsanayaan haraadiga argagixisada arxanka daran al-shabaab iyagoo qaybaha kala duwan ee ciidamada haddii aan xusanahay qayb ka yihiin ciidanka sagaarka u tababaran ee kumaandooska darab ciidanka sagaarka u tababaran ee gorgor iyo weliba guutada shanaad qaybta 27aad ee ciidanka dhulka xoogga dalka Soomaaliyeed oo guud ahaan isku howlgalka hogaaminayo taliyaha ciidanka dhulka Maxamed Tahliil Biixi howlgalku waa howlgal shacabka deegaanka iyo ciidanku ay si weyn u wadaan qaybo kala duwan kala socda dadka yaqaano deegaanku howlgalku ka socda dhinacyo fara badan haddii aan u sharaxo oo waa degmooyinka Maxaad iyo Matabaan iyo Beledweyne ilaa Beledweyne inta hoostata oo ciidamadu ku baacsanayeen haraadiga argagixisada arxanka daran al-shabaab waayahay shacabka deegaanadan howlgalku ka socdo ku nool iyagu sidee bay u arkaan howlgalkan ciidamada dowladda federaalka Soomaaliya ay wadaan dadka shacabka deegaanada inta howlgalka ka socda aan ku arkayno ku faraxsan inay soo gaaraan ciidanka isla markaana aad ugu go'aamo qaba inay arkaan dowladnimada isla markaana dhib badan aad dareemayso inay ku hayeen nimankan argagixisada ah oo deegaanada ay joogaan dadka ku dhibaateeya dadka ku gumaysta isla markaana dadka cadiyad kala duwan oo dhac iyo boob iyo weliba kufsi u geysta dadka ku dhaqan deegaanada ay farakutirska ay ku sugan yihiin shacabkan waa shacab aad ka dareemayso indhahooda farxad maadaama deegaanada qaarba markay awoodi waayeen inay difaacdaan ay ka gubayaan ceelasha isla markaana ay ka burburinayaan ateerooyinka isgaarsiinta isla markaana baahiyaha aasaasiga xoolaha ugu muhiimsan ay ka burburinayaan marka waa shacab u heelan inay arkaan dowladnimo inay arkaan in laga dulqaadayo cadowgan yeyda ah ee dhibaateynaya dadka shacabka waayahay Shilaawow waa mahadsan tahay waxaa jirtay warar sheegaya in argagixisada al-shabaab ay gubeen qaar ka mid ah guryo dad shacab ah ay leeyihiin arrimahaasi maxaa ka jira
waa sax waxay gubeen deegaano degmooyinka maxaati matalaan hoostaga oo tuulooyina ay gubeen kadib markii ay ka waayeen wixii ay ku qasbayeen dadka shacabka oo aysan la wada soconana dalkeena guud ahaan abaar darana ay ka jirtay dadkana waa dad xoolo dhaqato oo wax badan aysan argagixisadana waa kuwa dhac iyo boob u geera dadka shacabka waxay ka gubeen guryihii waxay ka gubeen ceelashii isla markaana waxay u diideen inaanay dhaqaaq samaynin inaanay dadkaasi noqon dad nool oo si waafiya noloshooda u guta maadaama dadka deegaanada ku dhaqan ay yihiin dad xoolo dhaqataa waxaa aad u adag nolosha ugu sii adkaatay balse ciidanka xoogga dadka soomaaliyeed oo garabka helay ciidanka deegaanka waxa ay wadaan sida ay dadka shacabkaana ugu gurman lahaayeen isla markaana ay xiido ugu siibi lahaayeen haraadiga argagixisada ah waayahay deegaanadaasi howlgalku iminka ka socdo waxaa iyana jirta in sidoo kale abaare ay ka jiraan bal ka waran dadka noloshooda sida ay tahay deegaanka markii aan indhendheynay waa deegaan aad ay u adag tahay dhulkuna waa dhul buulaley iyo dhul ad adag ah isla markaana dadka ku nool ee xoolo dhaqato ahaayeen xaalad adag ayaa ka jirta isla markaana waxaa ugu sii biirsamay colaadan argagixisada ah inay iyaguna ka dhacaan wixii ay haysteen marka xaalad aad u adag ka jirta balse ciidanka xoogga dadka soomaaliyeed ayaa mararka qaar deegaanada markay dadka ugu tagayaan waxay sameynayaan in nafahurnimo ah inay ku caawiyaan waxyaabaha iyagu wataan saad ahaan u wataan si dadka loogu gacan darto xagga nolosha isla markaana gacana looga dagaalamayo argagixisada waayahay ugu dambeyn saraakiisha laamaha dowladda gaar ahaan ciidamada militariga oo ugu horeeyo jenaraal biixi howlgalkani maxay ka yidhaahdeen ma la hadlay taliyaha ciidanka dhulka xoogga dadka soomaaliyeed jenaraal maxamed tahliil biixi sharif arwax waxa uu noo sheegay in aanay ciidanka xoogga dadka soomaaliya ay diyaar u yihiin inay gacanna kula dagaalamaan argagixisada gacanna ay ku caawiyaan dadka shacabka isla markaana shacabka ku dhaqan deegaanada waxa ugu baaqay in ay la shaqeeyaan ciidanka isla markaana haraadiga argagixisada laga dulqaadi doono waxaana guud ahaan shacabka soomaaliyeed ugu rajeeyey inay garab istaagaan ciidanka xoogga dadka soomaaliyeed waxaana uu si dhow uu hortaaga isagoo ku sugan furmaha hore dagaalka waxa uu sheegay in